gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle ayaa maanta maruu warbaahinta kala duwan ee ka howlgala magaalada Burco ugu waramaya xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay guud ahaan xaaladda amniga gobolka Togdheer iyo habsami u socodka howlaha shaqada wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer isagoo sidoo kale gudoomiyuhu ka hadlay kormeer shaqo maalintii shalay ahayd ku tagay deegaanka Bankaroori ee gobolka Togdheer waxaana uu yiri guud ahaan xaaladda guud ee gobolku boqolkiiba boqol weey amnigiisu wax dareena oo jiidaha ka jira ma jiraan gobolku xukuumadda degmooyinka waraasaka suuxnimadii hore la hadlay booliiskuna ay keeneen warsubaxeedkii iyo hay'adaha maaliyaddu guud ahaan gobolka xuduud dheer la leh waa gobolka ugu xuduudda dheer dhinaca dawladda Itoobiya waxa warkiisa rasmiga ah marka la isku soo ururiyo inuu boqolkiiba boqol amnigiisu yahay kulli hay'adaha amniga booliiska iyo hay'adaha kale ee amniga ku shaqada leh ayaa hadiyo goor xogta nasiya oo warsubaxeed bay noo keenaan iyagoo nala socodsiinaya xaaladu sida yihiin insha Allah taala gobolka guud ahaan aad iyo aad buu nabad qaba mashaariic badan baa ka socota oo dhinaca horumarinta oo ay wasaaradaha dawladaha hoose iyo dhammaan ay ku hawleeyeen hawlwadeenada gobolka taas oo macnaheedu yahay annaga oo ku hawlgalayna oo turjumayna si macnawiyan iyo maadiba siyaasadda cad ee uu ku shaqeynayo ama uu noo jeexay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa ogtihiin wasaaradii biyuhu sida u ballaarisay waa ogtihiin wasaaradii macdanta iyo tamartu imanka xafiiskayga soo galeen xafiis baa laga siiyay Suudaan loo soo magacaabay waa nin cusub oo dhalinyaro aqoon-yahan magaciisuna uu yahay Cabdiraxmaan Umar Suufi isaguna subax walba uu soo hawlgalaa waxa uu horeeyo ka qayb qaadanayna waxa weeye ayamtu barnaamij mashruuc ay hirgelinaysay ee kharashka badan ku bixinayeen ee shawaaricda magaalada lagu xidhay leydhkii ahaa solarka ee iftiiminayay wasaaradda waxbarashadu dugsiyeedkii baa bilaabmay iyagana waa dareemaysaan qaabka ay tahay hawshoodu ay u socoto oo si habsami ah u socdaan waa aragtaan booliiska gobolka inkastoo booliis tira badan ee uu naga galay seminar 45 cashaye saraakiili haddana isku xirkii iyo hawlgalkii waa sida khubaro Ingiriisina way nala joogtaa oo dhinaca tababarada naga caawinaysa diintii awqaaftii iyaduna sideedii bay u shaqeynaysaa wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka waa sidii wasaarad aan saaka taabadayn waan soo kormeero aan saaka 7 subaxnimo furayn ma jirin gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle waxa uu bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay garab istaagaan horumarada kala duwan ee laga hirgelinayo guud ahaan gobolka Togdheer iyo qaranka Soomaaliland gabagabadii bulshada gobolka Togdheer waxaan ugu baaqayaa guud ahaan inay si wada jir u ilaashadaan oo mas'uuliyad wadareeda amnigooda guud ee qaranka iyo ka gobolka waxaan si gaar ah ugu sii baaqayaa oo aan leeyahay saxaafadiina iyo dadka kale wax ku oolka uqaasha dadka kale muhiimka ee aragtida fiyoole war xilka nagu ilaaliyo nagu la xisaabtamo waxaan ku fadhinaa ee aan saaka bulshada kaga duwanahay calankii qaranka hor yaala kursigana qaranka leh miiskan qaranka leh waxaan gurigayga kala ma jirto qaranku xafiis ku yaala idinkaan adeega idinahay حليها يقول حسابتما وأن دنتنا وذا جيرانو وعدونا جودها يك دبده أينو قار كاهنو أينو قار كاهنو القلق وذاهم وخالد بكيلي شبكة عالمية اعتراف نيس برو